في الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مداه. الله وامتلأ الدنا بسناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مرك ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh. ilaahaygi mar kale noo suurtageliyey annagoo khayraadka iyo wanaagga isku sheegayno. waxaanu ku soo dhex jirnay cibaadada tadawuca loo yaqaano sunnada ah, gaar ahaan cibaadada soonka tadawuca soonka ayaan ku soo dhex jirnay. waxaanu maraynay soonka sunnada waxaa ka mid ah soomu yowmin wa iftaaru yowmin, maalin in la soomo maalin in la afuro ayaanu ka soo hadalnay. oo xadiiskii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalama uu yidhi axabu salaati ila allahi salaatu daawuuda calayhi assalaam, salaad la dukado waxaa ugu fadli badan salaada nebiyullaahi daawuud. wa axabu siyaami ila allahi siyaamu daawuud, soonka la soomayayna waxaa u fadli badan soonka nebiyullaahi daawuud. wa kaana yanaamu nisfa alleyli wa yaquumu thulutha, wuxuu ahaa kii habeenka kala bar ayuu seexanayay, 3 meelood meelna wuu soo kacayay. wa yanaamu sudusahu, marna habeenka 6 meeloodoo meel ayuu seexanayay. wa yasuumu yowman, maalinna wuu afuraayo. wa yafturu yowman, maalinna wuu soomaayo. wa yafturu yowman, maalinna wuu afuraayo. waju dalaalada marka meesha xadiiska aan ka soo qaadanay wuxuuna tusayaa soonka maalin in la soomo oo maalin in la afuro waxyaabaha ilaahay ugu jecel yahay inuu ka mid yahay kuwa kale oo dhan laga jecel yahay. wa in kaana akharu minhu, inkastoo uu badan yahay. waxaa kaloo lida wamaa kaana axabu ila allaahi jalla wacalaa, wax kasta oo uu yahay ilaahay jecelna fa huwa afdalu. waxaan ilaahay baa jecel haddii lagu yidhahdana asagaa u fadli badan. wal-ishtigaalu bihi owlaa, in lagu mashquulo asagaa habboon. xadiiskii kaas horaan usoo qaadana. xadiiska labaad oo u daliil ah cabdullaahi ibni camrin ibni caasin radia allaahu canhumaa, waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibni camr ibni caas, asagii aabiis baa allaha ka raadnay. qaala wuxuu yidhi ukhbira rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama annii aquumu, rasuulka ayaa waxaa loo sheegay inaan habeenkii salaatuliil u istaagaayo. wallaahi la asuumanna annahaara wala aquumanna alleyla maa cishtu, waxaan ku dhahay maalin kastana waan soomanaanaya, habeen kasta salaatuliil ayaan taagnaanaya intaama noolahay. fa qultu lahu, waxaan ku dhahay qad qultuhu biabii anta wa ummi, rasuulkaa la ii keenay, waa la ii weydiiyey waxaan ma adigaa yidhi. waan idhi buu yidhi hooyaday aabbay ha lagugu furtee. qaala wuxuu yidhi rasuulka fa innaka adiga cabdullaahiyow lan tastatiicu daalika, ma awoodi kari kartid. wakhtigaaga waa weynaan doonaa, da-ad noqon doontahay, ma awoodi kartid. marka rasuulka wuxuu kula teliyey fa sum, maalmana soon. waftur, maalmo afur. wa qum, saacado ka midana salaatuliil u taagnow. wa nam, saacado ka midana seexo. waxay wasum wuu usii kala qaybiyey. wuxuu yidhi wasum soon min ashahri, bisha waxaa ka soontaa 3 ayaamin, bil kastaba 3 maalmood ka soon buu yidhi. maxaa yeelay fa ina alxasanata bicashri amhaaliha, halkii xasanadoo maalintiiba 10 ayaa lagugu dhufanayaa. wadaalika mithlu siyaami dahri, wuxuu la mid yahay adigoo sanadka oo dhan soomnaa. qultu waxaan idhi innii atiiqu afdala min daalika, aniga kaas wax ka fadli badan ayaan awoodi karaa buu yidhi. qaala rasuulka ilahi yidhi fa sum yowman, maalin soon. waftir yowman, maalina afur. marka fadaalika siyaamu daawuuda calayhi assalaam, nabi daawuud soonkiisaasuu ahaaye. wa huwa afdalu siyaami, soon la soomana kan u fadli badan waayo. faqultu waxaan idhi
innii utiiqu afdala min daalika, aniga intaan hal maalin in afurnaado wax ka badan awoodaa. marka faqaala nabi sal allahu alayh wasalam, rasuulka ilaahi ayaa wuxuu soo afjaray, wuxuu yidhi laa afdala min daalika, soonka nebi daawud wax ka fadli badan ma leh. taas marka waa daliilka labaad koowaad way. daliilka labaad waa ijmaac waay, waa laisku raacsan yahay, ijmaac waay, khilaaf kama taagna. ijmaacaasina waxaa soo guuriyey ibnulxasm sheekh la yihahda ayaa soo guuriyey. qaybta 12aadna soonka waxaa la atatawucu bisawmi yowmin waaxidin, inuu qofka uu ku tadawuco uu soomo hal maalin keliya. marka waxaa la yidhaha man saama yowman waaxidan lilaahi, qofkii hal maalin uu soomo ilaahay dartiisna u sooma, ujira calayhi waa laga ajarsiinayaa, wadaalika fi ljumlati, arrimahan soo socda darteeda. daliilkiisana waxa waaye waa ijmaac waaye, macnaha hal maalin qofka inuu soomi karo waana ijmaac. ijmaacaasina waxaa soo guuriyey oo soo raray ibnulxasmi. qaybtaasina waa qaybtii kale. qaybtan kalena waxa waaye tadawuca tacriifkiisii ayaan fiirinaynaa. waxaa la yidhaahdaa qaybta kalena soomu tadawuc iyo axkaamu niyati fi tadawuc, intaasi way isku xiran yihiin. tadawuca la yidhaahdaa qofka inuu tadawuc sameeyo. tadawuca marka waa inaad garanaysa tadawuc maxaa la yidhaahdaa, waa inaad og tahay, ay kuu caddahay tadawuc waxaa la dhahayo. marka taasna waa marka tadawuca markaad ogaato waxa waaye qaabka waxyaabaha sunnada a loo niyeysanayo. atadawuc waxyaabaha sunnada qaabkee loo niyeysanaya, ma faradka iyo sunnada isku niyo miya, isku simaa loo niyeysanayaa, mise way kala duwan yihiin? marka taasaan fiirinaynaa. qaybtan waxaan fiirinaynaa atadawuca la yihahda. tadawuc waxa waaye tadawuca tacriifkiisii luuqada waxaan ku soo sheegnay, waxaan dhahnay tadawuca luuqada azamaanu wayajmacu cala duhuur, waxaa lagu jamciyaa waxa waaye duhuur ayaa lagu jamciyaa, macnaha dahriga waxa waaye sanadkii waxa waaye markii la jamciyo ayaa waxaa lagu jamciyaa duhuur. dahri waa sanad, macnaha siyaam macnaha qofkii sooma waxa waaye waxaa layidhi isaga oo sanadkii oo dhan soomay oo kale ayuu la mid yahay alayidhi. marka dahriga marka soonka tadawuca marka wuxuu soomka faradka uu kaga duwan yahay, waxaa la yidhaahdaa niyada xaggeeda. waxa waaye soonkii waa isku soon, sida loo soomaayo unbaa loo soomayaa, laakiin waxa waaye waxay ku kala bedelan yihiin. soonka sunnadana waxa waaye waxaaba la niyeysan karaa inta aan duhurka la gaarin, waa la niyeysan karaa haddaan qofka uu subaxii uusan waxba cunin. ama soonka waajibka ah waxaa shardi ah qofka in uu soo niyeysto waxa waaye habeenkii inta aan salaada waagi intuusan dilaacin in uu soo niyeysto waayo ayaa laga rabaa. marka saasay ku kala bedelan yihiin. marka soonka tadawuca halka xadiis oo ugu muhiimsan oo qofka waxa ugu yar oona soomi karaa waa uun halka mal. halkaas mar baa rasuulkeena sala allahu calayhi wasalama ayaa wuxuu yidhi qofkii hal maalin sooma, hal maalin qofkii sooma ilaahay dartiisana u sooma, man saama yowman fii sabiili illaah, hal maalin hadduu qofka u soomo ilaahay dartiisana u soomo, soonkaasi ha ahaado soon farada, soonkaas ha ahaado soon sunno ah, wuxuu raba ha ahaado, qofkii soomo ilaahay dartiisa u sooma waxaa la yidhaha qofkaasi waxa waaye baacad allaahu, ilaahay wuxuu ka fogeynayaa wejigiisa cani naari naarta 70 khariifan 70 sano. marka hal maalin oo aad ilaahay dartiisa u soontay, haddii oo ilaahay dartiisa u soontay oo ajarka aad helayso, naarta wejigaaga laga dheeraynayo 70 sano meel loo socdo, marka maxaad u malaynaysaa? marka haddii maxaan ku idhaahdaa aad soonto isniin iyo khamiis, haddii aad soonto maalan
isniinta iyo khamiista waa usbuucii labadaas maalmooda ku jirta. halkii maalin haddii 70 sano wejigaaga naarta laga dheeraynaayo, halkii maalin khamiista iyo isniinta markaad isku darto usbuuciiba waxaa wejigaaga naarta laga dheeraynayaa 140 sano meel loo socdo ayaa wejigaaga naarta laga dheeraynayaa. taasna horta waa mid waayo. midda kale, bishii marka waxaa ku jirta 8 maalmood ayaa ku jirto. 4 usbuuc waayo oo min 2 8 maalmood. 8daas maalmood ku dhufo halkii maalin oo aad ilaahay dartiis u soonto 70 sano haddii wejigaaga naarta laga dheeraynaayo, waxa waaye 140 iyo 140 waa 280 sano ayaa bil kastaba wejigaaga naarta laga dheeraynayaa. marka wax sahlan ma aha. marka waxa waaye qofka markuu inuu ka faa'iidaysto aaday muhiim ugu tahay. marka haddii ayaamulbiid aad ku darto 3 ayaamulbiidka haddaad ku darto, waxa waaye waxaa laga yaabaa ayaamulbiidka mararka qaar inay isniin soo gasho, mararka qaar inay khamiis ay soo gashaa dhici karta. marka 3 maalmood iyo 8 maalmood bishii marka haddii la isku daro waa 11 maalmood. halka goy oo mararka qaar khamiis inay soo gasho dhici karta mas isniin waa 10 maalmood. 10 maalmood halkii maalin 70 sano wejiga naarta laga dheeraynaayo meeqo waay marka 70 10 ku dhufo marka 10 maalmood ku dhufo 70 10 maalmood ku dhufo waxa waaye 700 oo sano 70 khariifan ayaa halkiiba ahaa 7 sano. maxaan ku rahaa 7 sana loo soconaya 7 sano 70 sano ku noqonaysa marka wejigaaga bil kasta waxaa laga dheeraynayaa soonka sunnada aad soomayso. wejigaaga waxaa laga dheeraynayaa 70 sano. maxaa waaye 70 fiiri 70 khariifan waa 70. markii aad 10 ku dhufato waxa waaye 700 oo sano wejigaaga naarta laga dheeraynaya. maxaad u malaynay marka haddii aad ramadaan ku darto, oo haddii maxaan ku raahdaa 6 maalmood oo wadaca ku darto adiga ku dhufso, waxa waaye cashuuraa bisha maxaan ku raahdaa dulxija 10ka ugu horeeya 9ka ugu horeeya aad ku darto, oo cashuuraa 10keedii maalmood amase yowmun qabla wa yowmun bacdu 3 maalmood haddaad kusii darto ayaamulbiidkina aad raaciso meeqaa helaysaa marka waxaan la koobi karin waayo. marka waxa waaye soonka tadawuca dad badan ayaa fududaysta oo sahlada, laakiin intaasoo faa'iido ah ayuu wataa. marka qofka waxaa la rabaa inuu ka faa'iidaysto cimrigiisa fursadda uu helaayo. yaa laga yaabaa maanta dad badan oo aan fursadda aad haysata aan haysanin, oo fursaddoodii ay fursaddii ka dhammaatay, oo ama dhinteena qabri ku jira ama awoodi kari waayey oo inay soomaan. laakiin adiga maanta haddaad awoodi karto oo fursaddaas haysato inaad ka faa'iidaysato. marka soonka tadawuca waxa waaye qaybihiisii kale casharada kuwa kale ku xiga ayaan kusii sharaxaynaa, ama qaybtan halkan ayaan ku joojinaynaa. ilaahay ha nagu anfaco. haadaa wabillaahi towfiiq, wallaahu calaa maa aquulu wakiil. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.